xaaladda caafimaad ee wariye xoriyo cabdulqaadir sheekh cali oo dhowaan dhaawac ay u geysteen koox dabley ah ayaa waxa ay tahay mid ka soo reynaysa waxaana lagu dabiibayaa isbitaalka Gaalkacyo Medical Center GMC. wariye xoriyo cabdulqaadir sheekh cali oo 14 bishani koox dhagar qabaliyaal ah oo doonayay in ay ifka dhaafiyaan ee bas u been sheegay xaaladdeeda caafimaad ayaa waxay hadda tahay mid aad u wanaagsan waxaana galinkii dambe ee maalmada shayto kulan lagu qabtay hoolka shirarka ee isbitaalka Gaalkacyo Medical Center GMC oo ay ka soo qayb galeen bahda suxufiyiinta oo si gaar ah gacanta ugu haysa maamulka isbitaalka maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo waalidiinta iyo madax ka socota ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSUD ayaa waxa looga hadlay xaaladda wariyaha waxaa dhammaanba xubnihii halkaasi ka soo qayb galay ay duco iyo ammaanba ay u jeediyeen xoriyo iyo isbitaalka lagu hayo waxaa hadda muuqata in xaaladda caafimaad ee wariye xoriyo ay tahay mid aad u wanaagsan sida uu tilmaamay Dr. Cabdulqaadir Maxamuud Jaamac Dhagacade oo ah dhakhtarka sida gaarka ah gacanta ugu haya xaaladda caafimaad ee xoriyo si gaarana u maamula isbitaalka Gaalkacyo Medical Center. way ladan tahay waxaanu ka soo saaray drainage-kii ama tuubadii uga jidhay feeraha waxba kama soconin tan iyo saakayto marka hadda waanu ka saaray caafimaadkeedu si fiican buu u fiican yahay wali prognosigeeda ma aanu si definitive si dhammaystiran inay kuma gudbin karo laakiin waxaanu rajo weyn ku qabnaa ilaa hadda waan soo kicinay waa istaajinay way socotay in ilaahay u gargaaro sidii uu gargaaray ilaahay haddaba oo haddaad aragtiin meelaha xabadaha ay uga dhaceen saabka oo dhan iyo caloosha iyo caafimaadkeedu hadda suu yahay wax isla maahin waa mahad ilaahay baa u gargaaro gacmihiisa u goglay wuxuu ogaa ilaahay inay xaq waxay sheegtay iyo waxay qabato iyo shuqulkeeda iyo gargaarka dadkeeda iyo ummadeeda ay u hayso ilaahayna ugu gargaar. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jira maamulka gobolka degmada iyo xubno kala duwan oo ka tirsan bahweynta saxaafadda dhammaantoodba waxa ay ka hadleen kaalinta ay xoriyo uga jidhay bahda saxaafadda iyo sida ay u jecel yihiin in xaaladdeeda caafimaad ay ka soreyso wanaagna ay mar kale shaqadeeda dib ugu soo noqoto. anigu u arkaya qofka fiican ee wadankiisa iyo dadkiisa u fiican dhibaatada cadowga wax ma yeesho waxaan kale oo aan ka tacsiyeynayaa arrintaas bahda saxaafadda gaar ahaan saxaafadda gobolka Mudug gaar ahaan kuwa Gaalkacyo raadiyo Gaalkacyo oo ah raadiyo horeeya laga asaaso Puntland iyaga laftooda waxaan ku boorinayaa inay biqin una arag dhaawaca xoriyo inuu dib u dhigo ama nabadgelyada si uga shaqeynayeen dareenka dadka ay siinayeen hadallada ku hadlayeen inay meeshooda ka sii wadaan waxa kana waa fulay intuu meel isku soo nabaxbad ku dhufanayo qof guushan waxa ku dameynaysaa inta samaha jecel waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Dr. Cabdulqaadir oo runtii kaalin weyn oo mug leh oo walaaltinimo leh oo dadaal leh ka qaatay badbaadintii xoriyo wayna badbaaday ilaa idankiisa sidii hadda dhakhtarku inoo ku warbixiyay markaan qaadano. waxaan jeclahay inaan ka hadlo dhibaatada soo gaadhay gabadha walaasheena ee xoriyo cabdulqaadir oo runtii ahayd tusaale warbaahinta gobolka u ahayd iyo warbaahinta Soomaaliyeedba ku sugnayd goob ama magaalo inta badan khilaafaadka ay gacan ka hadalka hubaysan ay ka dhacaan dhibaatada adag u soo dulqaadatay qof hufana hawlkar ah intaan anigu ka aqaano iyo idaacadda iyo sida shaqadeedu ahayd iyo aan la socday runtii ay ahayd qof maartay qiimo kule warbaahinta dhexdeeda waxaanad ka arkaysaan markii dhibaatadu ay gaartay tacaadufka iyo la dareen wadaaga iyo damqashada ay u muujiyeen walaalaheed warbaahinta gobolkan iyo warbaahinta Soomaaliyeed oo meel kasta joogta oo runtii soo xiriirayay oo aad u soo tacsiinayay waxaan markaa xanuunka iyo dareenka la wadaagaynaa dhammaanteen waalidiinta xoriyo ayaan la wadaagaynaa إن شاء الله waxaan rajeynayaa sidii dhakhtarku sheegay inuu nabarkaasi u ahaado nabar xaq darro oo ay si dhaqso ah uga kacdo ilaahayna ma garanaysaa uu waajibaadkeedii iyo shaqadeedii iyadoo caafimaad qabta waliba tusaale wanaagsan oo ku sii dhiiran inay xaq sheegto xoriyo xaaladeeda way fiican tahay way wanaagsan tahay alxamdulillaah rabbil caalamiin sida ilaahay ka rajeynayno way noo badbaadaysaa wayna noo caafimaadaysaa
الحمد لله رب العالمين. waxaanu leenahay dadka falalka noocaana geysanaya baan doonayaa fariin gaar ah inaan u diro suxufiyiinta gobolka Mudug anoo magacooda ku hadlaya suxufiyiinta gobolka Mudug sida uu sheegay waxay ka dhex shaqeynayaan magaalo aad u dhib badan annagoo ogsoon inaan magaaladaasi ka dhex shaqeynayno waxaan u sheegaynaa qofka wajiga soo qarsanaya ee doonaya dadka inuu haldoorka kala baxo inaanu uga baqaynin hawlaha iyo danta aan dadka u hayno waxaanu diyaar u nahay inaanu wixii wanaagsan ee aanu dadka ku hantin karno inay kaga baxaan dhibaatada maanta jirta inaanu cidna aan uga gabanin kan wajiga soo duubanaya iyo kan sida caadiga noo soo aadiyo toon inaan uga gabanin annaga waxa hubno ah afkayaga iyo qalinka wax kalena nooguma ahan inaan ummadda waxsan u sheegno buu afkayagu hub noogu yahay xorriyo haddii aan ku noqdo waxay ahayd xidig ka dhex ifaysa saxaafadda gobolka Mudug gaar ahaan iyo Puntland oo dhan taa darteed ayaa waxay sababsatay in ay hadaf u noqoto dadka wax magaradka ilaahay ka badbaadiyay baa mahad leh waxaana aad iyo aad uga mahad celinaynaa Dr. Raga Cadde guurihii iyo soo jeedkii faraha badnaa oo uu u taagnaa sida aqoontiisa iyo inta uu kari karo uu u badbaadiyo ilaahayna subxaanahu wa ta'aala uu badbaadiyay gabagabadii waxaanu leenahay waxaan u mahad celinayaa guud ahaan bahda saxaafadda gobolka Mudug oo casar iyo cisho iyo duhurba u taagan sidii gobolkooda xaqiiqadiisa ay ugu bandhigi lahaayeen bulshooyinka guud ahaan waxaan leeyahay shaqadiina ku kalsoonaada horeyna ugu socda waxa idin garab taagan sida xorriyada maanta ay garab taagan yihiin maamul iyo shacabba ummadii ay ka dhex dhalatay oo ay ku dhex shaqaynaysay oo ay u dhex iyaga u shaqaynaysay ayaa idinkana ummadaas oo dhan ba idin garab taagan inaydan shaqadiinana ka waaban inaydan xaqiiqada iyo runta ka leexan taasaan idin kula dardaarmaya guud ahaan xaaladda caafimaad ee wariye Xurriye Cabdulqaadir ayaa waxay tahay hadda mid aad uga soo wanaagsanaysa waxaana muuqata in hadda ay diyaar u tahay inay mar kale dib ugu noqoto shaqadeedii ay u gudanaysay ummadda iyo qaranka Soomaaliyeed mahad jaamac Koronto telefishinka qaranka Soomaaliyeed gaalkacyo